qofkii ugu da'da yaraa ee dil toogasho lagu xukumo adduunka oo idil. Giorgio Stini Giar waxa uu ahaa Afrikaan Amerikaan ah waxaana lagu eedeeyay inuu dilay gabdho cadaan ah oo da'doodu u dhaxayso 11 sano iyo 7 sano. Giorgio ayaa lagu xukumay laguna dilay kursiga korontada ah ee loo yaqaano Volk 70 sano kadib sanadkii 2014. Giorgio waxa caddaatay inuusan dilkaasi geysan, xukunka lagu ridana uu ahaa qaab qaldan u dhacay. Da'diisu waxay ahayd 14 sano markii xukunka lagu fulinayay. waxaana goobta soo xaadiray dad aad u tiro badan oo ay kamid ahaayeen dhowr arday oo ku galaas ahaa waxa xukunkaasi fulinayay maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. waxaa madaxa loo geliyay qalabka loogu talagalay in markaa si fudud uu neerfaha qofka uga dilo, isagoo ugu dambeyntii u sii gudbayay jirka intiisa kale sidaana ay korontadu ku gaarayso jirkoodii. Is there anything you want to say? Any last words? Oh!